maanta oo taariikhdu tahay 29 bisha saddexaad 2000 waxaan rabnaa halkan shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay howlgalladii ammaanka ee ka socday caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug. waxaan rabnaa halkan inaan uga sheegno amarada iyo digniinada dadweynaha ku dhaqan caasimadda iyo deegaanada hoos yimaada. waxaan rabnaa halkan inaan uga digno amar ka siino gaadiidka muraayadaha bensalka leh oo madowga in aan lagu dhex wada karin magaalada caasimadda Dhuusamareeb lalana soo gali karin. waxaa sidoo kale hubka sharci darrada inaan magaalada lagu dhex wada karin laguna dhaxaysa karin. waxaan sidoo kale ayadana uga digaynaa gaadiidka bilaa lambarka oo taargala'aanta asaguna waa la mid. waxaan ka codsanaynaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha caasimadda iyo hareeraheeda degan deegaanada hoos yimaada in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka gaadiidkoodana xakamaystaan maadaama muddooyinkii u dambeeyey falal amni darro lagu geystay gaadiid oo ay ku geysteen kooxaha nabadiidka iyo maaragtay argagixisada intuba ay ku geysteen dadna ku waxyeeleeyeen. sidaas daraaddeed waxaan uga digaynaa in aan la wada karin lagu dhex wada karin magaalada baabuur muraayadihiisu bensal yihiin oo muraayadaha madow. arrintaas mar koobaad iyo mar labaadba waa uga digaynaa, waana mamnuuc lagumana dhex isticmaali karo magaaladana lalama soo geli karo gaadiid muraayadihiisu bensal yihiin lagalamana bixi karo. hubka sharci darradana waa sidoo kale gaadiidka asaguna taargala'aanta asaguna waa la mid. ha isqarin haddaadan balaayo wadin gaarigaaga waxa weeye muraayadihiisa bacda ka fuji. haddaad ka fuji weysana waxaad la kulmi doontaa cinqaab sharciga waafaqsan insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo. intaas ayaan uga digaynaa. amarkuna saacadda aan joogno ayaa laga bilaabayaa. wax ku dhaqaaqi karaa ma jiraan oo muraayado madow oo bensal gaadiid sharci la'aan oo taargala'aan hub la iska haysto oo magaalada caasimadda lagu haysto oo sharci darro oo aan ahayn midka ammaanka lagu sugaa lalamana soo geli karo laguna dhaxaysan karo.